Ilkan wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan xaaska la guursado. Iyadana way maseeraysaa hinaasaheeda cirka maraya. Labada arrimood. Sida sheekh isku waafajiya maxaad ugu talin lahayd? Su'aasha hore waxaan doonayaa in xaaskii la guursado waana hinaasaysaa maxaan yeelaa? Marka hore horta waxa xusid badan guurka labaad faralna maaha sunnana maaha. faradna maaha. waa xaguure abaar guur maaha waa luqadii reer miyiga heerku marna wuu guuraayo abaar buu ka guuraa wada xoolaha kaga dhimanaya halka marna iyadoo dee iskaba ladan yahay meeshuna doog iska tahay ayaa la xaguuraa waxa la yiraahdaa halka kale balaan iyadana halkan waa cusub laakiin halka kale cusubka iyadana aanu guurno ama halka roobkii baaba ku batay halkaas yara qalalan aan tagno marka waa wax kororsi guurka hore guurka labaad iyo ka saddexaad iyo afraad waxbaad soo kordhinaysa haddii aad shay soo kordhinaysana waxa mudan dee xaasilkii hore inaanu kala kicin midhihii hore ee aad haysay ubadkii ooridii aqalkii hore inaanu xumaanin baa muhiima sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur'aanka arrintan ka warramayo shardi buu ku xidhay shardigaasoo ah cadaalad haddii aad ka cabsataan inaad cadaalad samaysaan midiina uun ku egaada in khiftum allaa tacdiluu fawaaxida meesha haddii cabsi ay timaado mid keliya ku gaabsada muxuu qof ka cabsanayaa inuu cadaalad samayn kari waayo maalan qofku naftiisa been uma sheego marka run ahaan loogu tago wuu og yahay wuxuu yahay caatifadiisa dhaqaalihiisa dabeecadiisa wuxuu dhan wuu yaqaanaa marka kolka hore uu ismiisaamayaayo wuxuu leeyahay dee meeshii mar haddii la haddii cabsateen cabsi hadday timaado waa dagaale tolo hawshaa ma ka bixi karaysaa maya wallahi inaan ka bixi karayn nin musaalima baa tahay oo xasaradaha iyo waxaa kari karay dee haddaba iska daa sidaasaa horta ay tahay in loo fahmo marka isku mid maaha qofka dee xaaskiisii iyo reerkiisii hore u jooga iyo qofka aan waxbaba lahayn isku mid maaha marka waa in lagu xisaabtamaayo sida quraanku ina barayo inuu qofkani labadii reer isku wadayo kii hore aanu burburayn oo xumaanayn ubadkii ooridii aanay qaraabayn taasi marka waa mid runtii xusid badan cilmiga marka muhiimka waxa ka mid ah haddii aad hawshan labaad galayso waa inaad taqaanaa sidaad u maaraynayso qofkii isaga ahaa ilaan qofkan markuu hinaasayo wuu ku jecel yahay waa qof diidan in loogu yimaado qofkii uu jeclaa bal maxaad ku